muqdisho. maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa madaxweyne cusub loo magacaabay iyadoo maamulkaasina madaxweynaha loogu magacaabay cabdikariin maxamed cali yaayuurow iyadoo xafladii magacaabitaanka madaxweynahaasi cusubna ay ka dhacday magaalada London. haddaba faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya oo inoo diyaariyay wariye Cabdinaasir Ciro. madaxweynihii hore ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Xasan Maxamed Nuur Shaati Guduud ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka degay xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed kuna wareejiyay Cabdikariin Maxamed Cali Yaayuurow kadib markii xaflad balaaran oo ay ka soo qayb galeen jaaliyada qurbo-joogta ah ee Soomaaliyeed ay ka dhacday magaalada London uu hadalkaasi ka sheegay Colonel Shaati Guduud isagoo khadka telefoonka ku soo hadlayay waxa uu ku nuuxnuuxsaday in dadku ay ka fakaraan mustaqbalkooda dhow iyo kan Colonel Shaati Guduud ayaa sheegay in gobolada lixda ah ee ku boobay maamul goboleedkan looga baahan yahay inay u istaagaan sidii loo horumarin lahaa goboladaasi waxa xafladani ka soo qayb galay dad fara badan oo qaarkood ay kala matalayaan maamulada kala duwan ee ka jira Soomaaliya markaan dhinacyo badan aan la isla fiiriyay dadkii deegaanka ku abtirsanayay waxa la go'aansaday in maamulkii dib loo hirgeliyo oo dib habeyn lagu sameeyo sidaa darteed ayaa waxay caawac ku soo beegantay xafladan caleemasaarka in xilkii madaxweynimadii goboleedka koonfur galbeed lagu wareejiyo mudane Dr. Cabdikariin Maxamed Cali Yaayuurow. waxaan u ambaliyeynayaa walaalkay Cabdikariin oo aan leeyahay anoo rajaynayo insha Allah inuu noqon doono kii u horseedo ummadda Soomaaliyeed bashbash iyo barwaaqo maxaa yeelay runtii gobolada uu ka dhashay oo ka soo jeedo waxa lagu tilmaamaa goboladii nabadda Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay madaxweyne inayna noqon goboladu sidii qoliyii hore warloodhada gobol walba intuu nin meel goosto iska fadhiisto laakiin madaxweyne waa kula xisaabtamaynaa sanadkiisa waxa aad u qabatay gobolkaad madaxweynaha ka tahay goboleedyada ma aha in fikradda laga qabo ani ahaan fikradda aan qabo waxay tahay ama in kuwa in dhigeena ah ama in waxaan isu tusaalayna ayaamahan dambe warnimayo in dadka dhibaataysan caafimaad ahaan ceelal aan u qodno aan nabadgelyadii wixii oo dhan aan sameeyno after that aan iskugu imaano hadda ninkii wax kale wad Allahu a'lam laakiin aniga ahaan iyo dadka aniga aan hadda dawlad goboleedyada aan islanahay ama aan is aragnay ama asla shaqeyn ama xiriir aan isla leenahay waxyaalaha aan go'aansanaa waxay tahay qashinka aan soo wada saana aan wada gubno qashinka marka laga soo warsado gurigaas waxa imaanka nadaafada imaanaysa biyo waa la helaa in security waa la helaa everything waa la heli karaa meel holki wadanka wada dadka sida hadhawaaya dhul siiyo beer siiyo bilaanka dara madaxweyne aad iyo aad baan kugu hambalyeeynayaa nin kasta oo Soomaaliya oo maamul sameeyo ama wanaag sameeyana waan soo dhaweynaynaa waxaan si rabaa madaxweynayaasha tirada badan ee kontonka gaarayow ha isku qabsanina kuraasta hadhow oo kulligeen madaxweynaha wada doonaynin hal madaxweyne dalka loo sameeyo maanta dalkeennii wuu baabaasan yahay dadkeenna odhan jirnay barigii hore dadkan inaan la hadalno nooma qalmaan ayay maanta hoos fadhiyaan waxay hoos fadhiyaan Kenya waxay ku haaskajoonayaan dhirta hoosteeda waxaanu ka baryaynaa maamul goboleedada madaxweyne Cabdikariin ka mid yahay inay dadka Soomaaliyeed ka xoreeyaan dhibaatada maanta haysata waa talaabada ugu horeysa looga baahan madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdikariin Maxamed Cali Yaayuurow ayaa isagu khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa halka ka soo jeediyay waxaan taageersanahay dawladda federaalka Soomaaliya ee Sheekh Shariif hogaaminaya waxaan idin sheegayaa in aan la shaqeyn doono maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ee aan madaxweynaha ka caawo oo la ii caleema saaray waxa ballan igu ah dawlad kasta oo Soomaaliya la dhisay inaan la shaqeyno horeyna nabad ayaan loogu bartay hadaan digli mirifle maamul goboleedkan oo lagu aasaasay gudaha Soomaaliya sanadii 2002 bishii Afraad waxa ilaa ay haatan hogaaminayay maamulkaasi rugcadaaga siyaasiga ah Colonel Shaati Guduud balse haatan waxa ka aramiya deegaanadaasi xoogaga islaamiyiinta ah ee Al-Shabaab inkastoo madaxda xilka kala wareegsatay ay soo hadal qaadin sidii ay ka yeeli lahaayeen arrinkaasi Cabdinaasir Ciro Universal TV
London. halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa telefishinka caalamiga ah ee Universal Studio magaalada London.